السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت بدن halkan saaxiibada ku nahay soo dhawaada oo walaalkii maxamed maare iyo muuqaal kale waxaan ka codsanayaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaro inaad la wadaagto saaxiibadaada kale waa mahadsantahay soo dhawaada noloshu uma istaagayso caqabadaha yaryar ee aad dareemayso ama xataa caqabadaha waaweyn ee aad dareemayso sababtoo ah caqabaduhu inta badan go'aanka qofka ayay saameeyaan ma bedelaan waqtiga iyo sida waayaha iyo wadcigu ay yihiin sidaa daraaddeed ku dadaal in go'aanada aad qaadanayso oo aad nolosha ka qaadanayso ay noqdaan kuwo aan ku dhisnayn caadifad noloshu waa wada caqabad shay kasta oo aad u baahato inaad samayso iyo wax kasta oo aad u baahato inaad yeesho iyo dadaal kasta oo aad u baahan tahay inaad samayso dhammaantood waxay leeyihiin caqabado kaa hor imanaya sidaa daraaddeed waxaad ku dadaashaa inaad noqoto mid la qabsada oo la noolaada oo fahmaa caqabadaas si aad taa xalkeeda ugu hesho sababtoo ah haddii aadan caqabada fahmin xal kuma imanayo oo ma xalin karaya sida caqabadaha yaryar ee nolosha kaaga hor imanaya caqabad kastana waxay macno leedahay waqtigaa ay taagan tahay oo haddii la dhaafo waqtigaa ay taagan tahay waxay noqon doontaa wax uun ku salaysan taariikh tagtay oo adiga ku soo martay mar tusaale markii aad yarayd ee aad iskoolka dhigan jirtay waxa ku haysta caqabado yaryar waxaa ka mid ah inaad jeclayd inaad qof ku dayato ama macalinkaaga ha noqdo ama qof aad baraha bulshada ama yacni deegaanka aad joogto laga yaqaano ha noqdo waxaa jiray qof aad necbayd inaad aragto ood la kulanto waxaa jira iskool ama jaamacad aad jeclayd inaad ka qalin jebiso oo aad dhammayso waxyaabahaasoo dhan waxay ahaayeen caqabado taagan waqtigaa oo ah kugu culus dhankaaga dhammaantood waa lasoo dhaafay hadda oo waad weynaatay waxaa laga yaabaa inaanay qaarkoodna kuu hirgelin qaarkoodna ay kuu hirgaleen laakiin maanta haddaad maskaxdaada dib u celiso waxay kula noqonayaan caqabado yaryar sababtoo ah kuwa maanta ku haysta ayaa ah kuwa waaweyn kaaga baahan inaad xaliso iyagu waa wax lasoo dhaafay noloshaadiina saameyn weyn kuma yeelan sidaa daraaddeed caqabadaha aad maanta dareemaysa ayay ku saameyn sababtoo ah caqabaduhu waxay isu bedelaan sida uu waqtigu isu bedelo xalkooduna waxa uu noqdaa wax markaa ku saameeya oo noloshii inta kale kaa xidha iyo wax aad ka gudubto oo intii karaankaaga marka aad ku dadaasho inaad xaliso oo aad xal u weydo aad ka gudubto oo aad u gudubto nolosha inteeda kale ee kaaga baahan inaad xaliso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu